تلولب دلا تبن تابنو تغير نسمو تغير 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 عن تغير نسمو dadkaygu tashada isku tiirsado tawfiiq saniyo tayeesha mida tasho 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 dadkaygu isku tashada dadkaygu tashada isku tiirsado tawfiiq saniyo tayeesha mida tasho 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 dadkaygu isku tashada ilaah baa mahadle dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu hogaaminayo oo maanta xafladda ka soo qayb gashay waa u mahad celinaynaa anoo ku hadlayo magacii isimada waxaan leeyahay soo dhawaada waxaa laydinku soo dhawaynayaa xilka aad haysaan waxaa laydinku soo dhawaynayaa dalkiinnii waxaa laydinku soo dhawaynayaa ayraboorkiinnii waxaannu idinku soo dhawaynaynaa lahaansho aannu idinka leenahay ma ahane waa kaad u dhaarateen magaaladaannu u hoyanay ama u hoyanaa saasaannu idinku soo dhawaynaynaa dalka iyo dadku kaad u soo dhaarateen sidaan idinku soo dhawaynayno sidaa wey waxaannu idinka sugaynaa geed tegi jiray gartiisa waa yaqaan laga dhiman jirayna dhaxalkiisa waa yaqaan wixii aad shalay anta qaadeen wakiilka nooga ahaydeen dhaarta noogu marteen kalsoonida aannu idinku qaadnay haddeerna aannu idinku qabno oo ah Soomaaliya xilka aad u qabateen wax ka hooseeya oo aan anigu maanta idin weydiinayo ama aan idinkala ballamayo ama aan idinka sugayaana ma jirto haddaannu diidannahay waxaannu idiin dirsanay wakiilka nooga tihiin dhaartana noogu madheen waad noo sheegaysaa niino saasaadnu baan ku diideeni hadda wixiinnii aad nagu dhaariseen haddaydaan rabin naga hooyaa nagu filan bacda salaam runtii aniga waxay ii tahay farxad weyn maxaa yeelay Puntland waxaan dhihi karaa aniga raasumaalkayga gaarkaa waay sideedana wax raasumaala dowladaha ka jirta haddaadan dowlad lahayn wax aad gacan ku hayso ma jirto mudana madaxweyne Puntland markii la aasaasayay Soomaaliya dowlad dhexe kama jirin waxay ahayd xilli civil war oo jiriyay oo dadku nin walba meeshii ku aadaneed oo u ambada Puntland markaas waxay ku dhisantay mahmaah la yiraahdo in la kala tago in la iska raacaa ka roon maxaa yeelay meesha ay ku taalaad gara kartaa waxaad gara kartaa inuu meesha dalku inuu kala go'o ay sigtin loo noqday meel walba marka waa ka raaracsata meel faka karta waa la waayay sidaas darteed marka Soomaaliya maanta waxay joogtaa meel aad ka wadi karto oo midayntii iyo gacmo qabsigii iyo mataqaanaa dib u heshiisiintii iyo dowladnimadii iyo xoojinta institutionska aad ka wadi karto oo aad dhammaystiri kartay kuu joogtaa
aniga shalay waxaan kaaga horreeyey aargada markaan halkaan soo gala marka aniga wafdi waa iska dhaafay reer Puntland aan naqdo waad iga aargada iigu yimi kaasnimada madaxweyne waxay ku tusinaysaa inay yoomul carafaad oo kale ay shalay ahayd markaan u soo laabto marka aeroboortka annaga Soomaalida magaca aeroboortka waxay u taqaanaa duulaydeg maxaa yeelay annaga Hirshabeellaan ka imide waxaa looga yaqaanaa duulaydeg marka af Soomaaliga aeroboortka maadaama uu yahay international maadaama uu yahay aeroboortkan generaalkeeni qaaliga ahayo dawladnimada soo bilaabay oo taariikhda ku lahaa booliiska Soomaaliyeed runtii aniga 91 si fiican u bartay in loogu magac daro waa mudan yahay aad iyo aadna waa u mahadsantii maxaa yeelay taariikhda ummadda waa inay dadka muhiimka ahi ay wax uun loo reebaaho wax lagu xusan loo reebaa marka runtii waad arkayseen hadda Maxamed Siyaad Barre wadadii uu dhisay ayaa maanta madaxweynihii hore oo ku amaanay qofka laga xaqiri ma kara marka wax uu qabtay aniga marka hadda waad aragteen aniga anoo marmar madaxweyne ku mucaarad ahaad ay arki jirteen moogtay marka hadda madaxweynahan rajo weyn aan ka qabaa inuu dalka Soomaaliya mideeyo runtii taageerada aad muujiseen midaan idinka rabay aad iyo aad ugu mahadsantihiin qalbigeena isla socda maalintii dhaweed aniga axzaabta xisbi oo la diiwaan geliyey oo si ku meel gaara loo diiwaan geliyo xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda oo aniga gudoomiye u ahaan rabaa inaan xafiis meeshaan ka furo haddii marka la furi diido xisbigii la milmileeyo ee qabiil iyo lagu meereysto aniga waxaa waaye halkan doorashada dambe waa imaaha ka maqnaama marka mudane waxaa laga rabaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas marka inuu xisbigayga horta oo ka furaa la rabaa meesha haddii kala tartamkaan la gela taasna waxaa waaye waa risaalada xisbiga iyo axzaabta aan ka socon dawladda hadda jirta oo federaalkana runtii aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa wax istaakul ahay noo dhigta haba yaraatee ma jirto inaad noqoto madaxdii ugu soo horreysay oo aeroboortkan maanta la furay oo dowladda Puntland ugu magac dartay jenaraal Maxamed Abshir Muuse Allah u naxariistee inaad adigu noqotid qofkii ka soo tegay nasiibkaasaad heshay nasiibkaas taariikhiga waad heshay xilnadaas waa la socdaayo haddii ogow xilka la socdaana waxa weeye weli ma dhamma wax badan baa ka dhiman waxaan rabaa inaan kuu sheego taariikhda garoonkan intii la soo waday oo dhismihiisu socday ama ha ahaada markii garoonka ahaa airstripka waxa loo yaqaano oo ahaa garoonka ciidda diyaaradu ku degaan sida kaakonoonka oo kale ama haddeer intii laga dhigay garoonka laamiga 15 sano weeye garoonkan waxaa bilaawday dowladda Cabdullaahi Yuusuf 2003 anigoo wasiirka ka ahaa anigaa goobtaan sahamiyey anigaa injineer Akimoon oo ka mid ahaa ikaaw keenay halkaa isagaa cabiray waxay nagu qaadatay in aan dhisno 7 sano anigoo wasiiraan bilaabay anigoo madaxweynaha Puntland noqdaan 2010 dhameeyey wuxuu noqday garoonkii ugu horreeyey
oo injineer akimor ay ka socda intuu ku soo dego oo yiri airstrip uu ku fiicnaayo aan weligii ku dhigay uu noqday markaasna certificate la siiyey maanta intii ka dambaysay sanadkaas la furay dowladda Kuwait aan madaxweynaha u tagay ayaa ku deeqday 10 milyan garoonkan iyo jaamacadda baran labaas ku deeq waa u kala qaybinay garoonkan 6 baan ku qoray jaamacadda baranna waxaan ku qoray 4 kun labada mashruuc midna socialka yahay midna uu yahay infrastructure kaabayaasha dhaqaale waxaan isugu nimid daafurka airportka oo muddo ay sugaysay Soomaaliya iyo gaar ahaan dadweynaha reer Puntland waa airportkii labaad hadda aan daafurno oo caalami ah ee laga hirgeliyo Puntland sida la sheegay dad badan baa contributionkeeda iska lahayd ama ha noqoto lacag 5 milyan oo dowladda Kuwait ay ku deeqday 6 milyan aan marinaya inta kale ee ku baxday intaana ka tira badan waxa lagu keenay isku tashigii dadweynaha iyo dowladda Puntland ay ku waxaan rabnaa marka waxaan maaynayaa October 2014 anoo jooga London ayaa waxaan idin hal sano hal airport 2 sano 2 airport 3 sano 3 airport halkaas marka la runtii wax dhaqaalaha aan meel ku ogeyn ma jirin laakiin waxaan kalsooni ku qabay awoodda shacbigeenu haddii ay ayagu tashadaan iskuna tashadaan awoodda ay leeyihiin ilaahay ayaan ku aamin qabay in ay niyad wanaagsan iyo dadaal haddii lala yimaado in wax walba inuu hirgelaya waxaana marka madaxweyne Puntland waxay ku tashatay waxay yiraahdo isku tashi ba ku balanta waxaan ku balannay isku tashigaas waxaan ku bilownay oo odayaashii ugu horeeyay Maxamuud Xaaji Sulkaan oo noo fadhiyo sheekheeni wadadii midigar oo xastamo mareynaya oo bilowgii 2014 iyadoo go'aan meel u nimid aanan u qabin in aanu buundo dhisan ka raweyn dadku ay u qabeen laakiin dakhli $1 milyan oo dollar ah iyo 2 bilood gudahood aan ku dhamaystiranay waxayna tusay taasi wax badan in aanan ka sugin ajnabi iyo dabad laakiin annagu wixii aan qabsan karno aan qabsano su'aal waxay tiraahdaa la yiri ragta shaday cid waa tori kartaa ka labadeed dumarkana waa ku daraya waa kala yiraahdaa wixii maxay ahayd ragta shaday rag banaad balawaa rumooga haddana dumarka ku daraya laftigeeda waxaan rabnaa marka madaxweyne waxa ugu dambeeyay oo ku hirgalay isku tashigaasi waxa weeye airportka Garowe ee maanta adigu aad daahfurtay waxaan aaminsanahay wax badan oo ka sii tira badan ama ha noqdaan dekado ama ha noqdaan jidad ama ha noqdaan kaabayaasha kale ee dhaqaalaha waanu qabsanaynaa waana ay noo socdaan hadda laftigeeda oo in badan oo kaabayaal dhaqaale oo wadooyin leh oo dekado leh ayaa noo socda oo dhammaantoodna ku imaanaysa isku tashigeeda airportkan marka madaxweyne wixii ay Puntland qaban kartay waa qabatay waana aragtay waxa dhiman dhamaystirkiisii annaga intaasay nagaga egta waxay ka dambeeya dhamaystirkeeda idinka ayaa la ka sugaya waxaan rabaa sidoo kale dowladda federaalka ah wax walba oo la qeybinayo waxa tiraahdaa 4.5 ku qaybinay hadda ka hor halkaan anagu 4.5 ka diib hadde baahida markii la yiraahdo adeega
iyo tababarka iyo qalabka ha lagu saleeyo madaxweyne baahida iyo garoomada iyo fasilitieska dalka ka jira ha lagu beesgaray laakiin aysan noqonin in la yidhaahdo wax walba sida bres la qaybinayo waxa loo qaybinaya 4.5 idinka iyo reer sida aan kalkan ka maqasheen airportka waxaa loogu magacdaray Allah u naxariistay General Maxamed shacabku inuu qaato dowladnimadu hal maalin ma aha hal bil ma aha hal sano ma aha waa wax taxana ah oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay xaq u raahada adkeeyaan maamulkooda laakiin shacabkana waxa laga rabaa inay dul qaataan aysan is oran ilaa waxa la yiraahdo Roma hal maalin kuma dhisman anaga 27 sano waxaan ku jirnay dhibaato joogto ah oo idinka ugu horeeyay wixii dhibka ugu horeeyay soo arkay ismaha dowladuna waxay qaadanaysaa muddo dheer hal maalin ma aha marka waxa la rabaa shacabku inay u dul qaataan maamulkooda hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay federaalka oo lagu adkaysto wax la yiraahdo continuity lagu adkaysto shacabka waxa laga rabaa inay qayb ka noqdaan dhaqaalaha maamulka markaas ka tirsan yihiin haday tahay dowlad goboleed iyo federaal inay bixiyaan waxa aan caalamka ka sugayno waa wax dad laga soo aruuriyay oo kala ah waxay ku timaadaa dhaqaalaha arunta in shacabku horta uu ku kalsoon yahay dowladooda annagana waxaan laga rabaa inaan kalsoonidaas aan ka dhabeeno oo aan hirgelino waxa shacabka ay naga rabaan Soomaaliyeed idinkana waxaa idinka rabaa inaad dhaqaalo ku kaalmeysaan dhaqaalaha macnaheedu waxay tahay canshuurta waa qaran way canshuurta inaad idin ka lex jeclaysan maxaa yeelay haddaan raahno dowladda shay wax ka sugaynaa waa wax dad laga soo qaaday wax idinka ka yimid ma aha waa dad idinkoo kale oo xilqaamay oo dowladahoodaas dimuqraadiga aaminay oo si hufan oo wanaagsan u baxsha canshuurta dowladdaasna ay u maamusho si dadku ay u ogyihiin annaga waxaan laga rabaa marka dowlad goboleed haddaan nahay federaal waxaan laga rabaa wada shaqayn dhexdeedna ah waxaan laga rabaa dowladda dhexdeeda federaalka inay wada shaqayn leedahay uusan khilaaf imaan maxaa yeelay hadduu khilaaf yimaado waxaa imaanaya wax alla wixii horumar ah inay istaagaan oo aan loo danayn dadka Soomaaliyeed aan loo danayn dadka guud aan loo danayn marka dowladda dhexe ay nabad tahay oo heshiis tahay oo wada shaqayn leedahay inay la shaqayso dowlad goboleedyada iyaga naftigooda taas waxay ku imaanaysaa marka guud ahaan dalku inuu isqabsado horumarkiisa oo qorooyinka nabadiidka ah oo dhibka lagu haya aan meel uga soo jeesano oo aan uga adkaano waxaa laga rabaa dowladda annaga naga rabtaan hufnaan in waxa aad bixisaan oo canshuurihiina inaan si wanaagsan idinku maamulno oo ilaahay hortiisa ah oo aan dib idinku soo celino adeegeeda hadday tahay biyo nadiif hadday tahay iskuullo hadday tahay jidad hadday tahay infrastructure sidaan ka arkay hadda magaalada Garowe hawsha wanaagsan oo ka socota in dib lidinku soo celiyo wixii aad bixiseen oo si wanaagsan lidinku maamulo tan ugu muhiimsan waxay tahay soo celinta sharafka ummadda Soomaaliyeed oo naga luntay 27 sano ka hor inaan dib u soo celino sharafkii iyo qiimkii aan caalamka ku lahayn soo celino taasna waxay ku imaanaysaa anagoo xiriir wanaagsan la sameysana caalamka intiisa kale oo dal walbaba aan saaxiib la nahay dal walbana danahooda aan kala shaqeynayno iyagana danahooda nagala shaqeynayaan iyadoo ay ku salaysan tahay mutual interest oo laba dhinac ah oo aysan ahayn mid dhinac u janjeerta aysan ahayn iyadoo weliba ku dhisan wada shaqeyn iskaashi iyo ixtiraam